muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa deegaamada gobolka Sanaag iyo Highland waxaa wafdi ballaaran ku marayay Sheekh Xasan Mahad Sheekh Maxamed Rabiic oo markaas u kuurgalayay xaaladaha ka jira deegaamadaasi bulshada ku nool waxaana uu u duceeyey bulshada deegaamada gobolka Sanaag iyo Highland halka ay bulshada deegaamadaasini ay kala hadhay waxaana maalintii shalay galaab si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada Shimbiraale ee ka mid ah deegaamada gobolka Sanaag isagoo shiikhu habeenkii xalay ahaa oo ku sugnaa magaalada Shimbiraale ayaa maanta uu ka soo ambabaxay magaalada Fuqufiliye ee gobolka Sanaag halkaas magaalada Fuqufiliye ayaa muddo 1 kiiloomitir u jirta magaalada shiikha lagu soo dhoweeyey wuxuuna mid u gacan qaaday dadkii ku soo dhoweeyey magaalada Fuqufiliye ee gobolka Sanaag soo dhoweyn iyo gacan qaad kadib ayaa shiikha waxa loo soo galbiyey hoygii uu ka digi lahaa magaalada Fuqufiliye ee gobolka Sanaag hoygii uu ka digi lahaana ayuu wuxuu kula kulmay soo dhoweyn tii uu soo maray oo kala ah kadib markii uu soo gaadhay hoygiisa ayaa halkaasi waxaa ku soo dhoweeyey hoyga oo hadallo kooban ka soo jeediyey culimo awdiinta xerta ee magaalada Fuqufiliye odayaasha iyo waxgaradka magaalada Fuqufiliye waxaan soo dhaweynay haddaan nahay degmada Fuqufiliye waayeelada degmada Fuqufiliye codkar iyo caaqil waxaan halka ugu soo baxnay wafdida ballaaran ee wafdi diimeedka ah uu hogaaminayo Sheekh Xasan Sheekh Maxamed Rabiic baan soo dhaweynaynaa wafdida waxaanu leenahay waa magaaladiinii dadku waa dadkiinii soo dhawaada tafadal baanu leenahay sheekha iyo culimadiisa waa soo dhaweynaynaa Sheekh Xasan Sheekh Maxamed Rabiic iyo wafdida ballaaran oo guddiinka uu watay haddii aanu nahay waayeelka culimada dhalinyarada degmada Fuqufiliye waxaan ku soo dhaweynaynaa marka waxaan ku salaamay salaanta diinta islaamka marka labaad waxaan ku soo dhaweynay kalgacayl iyo rabitaan baan ku soo dhaweynay wixii dambeeto oo hadalana sida waayeelka iga horeeyay sheegay fadhiga u baa la isku wareysanayaa dadku waa dadkiinii waa degmadiinii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Sheekh Xasan Sheekh Maxamed Rabiic iyo culimada uu wato waa salaamaynaa gacmo furan baanu ku soo dhaweynaynaa waxa weeyaan madaxii diinta waa ku qanacsannahay gacmo furan baanu ku soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol ummadda kale oo isu timina waa u mahad celinaynaa ilaahay baa mahad leh waxaan ku soo dhaweynaynaa wafdi ballaaran Xasan Sheekh Maxamed Rabiic oo halkan loogu yimid maanta waftidaas oo ka timi bariga dhul badan soo martay oo maanta loogu timi degmada Fuqufiliye aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa haddaan waayeelka dhalinyarada cuqaasha haweenka dhalinyarada inta baan nahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa wixii kale oo warana waxaan dib fadhigeenu ku wada hadlaynaa khayr iyo barwaaqo idin rajaynayaa warahmatullaahi wabarakaatuh والسلام يا ولماذا شرفت له حسن الشيخ محمد ربيع هجاميني يدوب تيميد دقمة Fuqufiliye وانا بريء وانا السلام وانا خير كائنات سدي وانا كائنات تيمي إلهي مهدي ويا إلهي مهدي وانا أمر إلهي جاي معنا وكل دومين كائنات سدي محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم وحوي وفدك بلارن وهجامنا حسن Sheekh Maxamed Rabiic iyo waftigiisa ballaaran oo culimada Rabiiciya madaxeedii weeyaan waan soo dhaweynaynaa aad si ballaaran ayaan u soo dhaweynaynaa oo mugyo miisaan leh sidaa daraaddeed degmada tanin waxa weeye waa degmadii Fuqufiliye oo koonfurta Sanaag ka mid ah sheekha iyo waftigiisa ayaan soo dhaweynaynaa anigu waxaan ka mid ahay waftigii halkan wax ku soo dhaweeyay ragga halkan wax ku soo dhaweeyay baan ka mid ahay goor dhaweyd adigu qoladan baan xoogaa ka soo horeeyay ilaa xalay baan aagan joogay inaan qoladan maartay sheekha la soo dhaweeyo ducada la wadona qaybtayda aan sii qaato anigoo ka yimid xagga iyo kulaal baan maqlay sheekhu inuu halka imanayo dabeedna waxaan idhi ducada ballaaran halka ku soo wajahan ha dhaafin soo dhaweynta ka qaybgal qaybtaadana sii qaado
marka waxa weeye waa alxamdulilah haddii ilaahay inagu soo simay culimadii wixii niyadeennaana waynaynu wanaajisanaa waynu helaynaa khayr waynaynu malaysanaa alla ayaa mahad leh waxaana mahad bulshada magaalada fiqi fuliye u mahad celiyey sheekh cali mahdi oo ka qayb ahaa wafdida uu hogaaminayo sheekh xasan mahdi sheekh maxamed rabiic iyadoo qof kaliba uu taatalkiisa salaanta ku qaadanayo salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam waxaan leeyahay dadweynaha reer fiqi fuliye aad baad u mahadsantihiin anigoo ku hadlaya wafdida culimada ah ee soconaysay uu hogaaminayo sheekh xasan mahdi sheekh maxamed rabiic waxaan leeyahay walaalayaal sida diiran ee aad noo soo dhoweyseen ee aydan noogu kala harin culimo iyo cuqaal roole iyo carruur aad baad u mahadsantihiin ilaahay ha idinka jazeeyo mar labaad iyo mar saddexaadba waa idin mahad celinaynaa sida kalgacalka leh walaaltinimada leh insha allahu aad noo soo dhoweyseen waana wixii aynu kala mudnayn dadku siyaabo badan buu isugu xirmaa siyaabo badan baa laysu xiriiriyaa siyaabo badan baa laysu soo dhoweeyaa laakiin waxaan aaminsanahay innagu iyadoo dadku uu isku dad yahay ehel aynu nahay isku deegaan aynu nahay haddana sidan arrintan hadda aynu isku soo dhowaynaynaa waa ilaahay darti annaguna culimmadii diinta waday baanu nahay oo hoggaankii diinta uu hoggaaminayay idinkuna dadweynihii caawimayey ee culimmada ku xirnaa ayaa tihiin mar haddaynu sidaa markaa isu kaashanno waa tii uu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam maa axsana diina wadunyaa idaa ijtamaca markay diinta iyo dunyadu kulmaan macnaha dadkii dunyada iyo dadkii diinta ka shaqaynayey markay iswaafaqaan maxaa ka wanaagsan wax ka wanaagsan ma jiraan insha allah waxaan rajaynayaa sida diiran aad noo soo dhoweyseen qalbiga furan aad nagu soo dhoweyseen iyo qalbiga furan aanu idinku nimi markay iswaafaqaan qabuulkii baa la helayaa idinkuna insha allahu tacaala waxaad niyadda gelisaan wixii aanu wadnay oo duca ahaa oo diin ahaa oo deegaanadii kale oo ballaarnaayo idinla midkaa aanu ku soo marray mid la mid aanu idin helaynaa idin wadnaa aqbalkeediina waa la helayaa insha allahu tacaala wixii dambe waxaynu isku waraysanaynaa waa isu degsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan leeyahay waad mahadsantihiin ilaahay idinka jazeeyo wajazaakumullahu khayran wassalaamu calaykum wafdidan uu shiikhu hogaaminayo ayay soo mareen meelo fara badan oo ka mid ah gobollada Highland iyo Sanaag wuxuuna sii mari doonaa meelo markaasi u dhiman oo ka mid ah gobolka Sanaag shiikha ma aha markii ugu horreysay uu soo gaadho wafdidan oo kale ku yimaado deegaamada gobolka Sanaag iyo Highland tiraba dhowr jeer ayuu gobollada Highland iyo Sanaag wafdi noocan oo kale ah uu ku yimi waa Axmed Cabdillaahi Ciise Axmed Cashuur magaalada Fiqi Fuliye ee gobolka Sanaag.